مهمة وحاواي إن جهلك كوهاي إسكسارتو خاصة دائرة السوق رئيسو markaa wareysta gabadha iskuulka markaa saa usoo dhamayso iyadoo noloshii guriga iyo wax kaba aan la barin oo tarbiyadii waxba loo sheeginayo leeyahay nin baa lagu siiyo lagu diyaariyay yaa u diyaariyay waalidkii walaayadeeda ayaa u diyaariyay laakiin lama fiirin ma u qalmaa waqtiga mas'uuliyad ma qaadi kartaa reer ba dhaqi kartaa reer dhaqisti ma la baray miisaaniyada dhaqaalaha ma la baray ilmaha tarbiyadooda ma la baray qofka munaasab ku yahay ikhtiyaarka maxay qofka qofkeedii ma yahay intaba lama fiiriyo inta wadada in yaro ilaahay u naxariisto oo nagamida mooga inta badan ya gabar ama god ha kaaga jirto maxay dhahaan ama guri ha kaaga jirto naamka guriga gali ayada wax taqaano ayada jaahilada guriga ha galinin naam way guursanaysaa waa mujtamaca barkiis saani'atu rijaal laakiin guriga markaa gelinaysa ayada gurigeeda taqaano oo noolaan karta gali waa maharaadkii iyo xayaatadii iyo waxyaabihii khaladkii iyo khayrkii iyo saxi bar leeyahay isaga guurin ayada jaahilada ama ayada maxay tahay noloshii qoyska aan la barin هذا waxay baraysaa le gabar wax taqaan gabar isku ma soo dhigtaa noo soo dhaweyn maxaa laga cararayaa yani waalidka subaxna say iskool ugu kaleysay iskuulka markay dhameysay noloshii qoyska lama barin xirfad dhaqaale xirfad yar ay ku noolaato hadii duruufaha soo wajahaan lama barin azamaadka waxyaabaha soo wajahaya geeri baa iska imaanayso furin baa imaanaya xanuun baa iska imaanaya quraanka inta uu sheegay gabar wadiga nabiga ayub marka caqabadaha say gabadha uga talaabsanaysaa say gabadha uga talaabsanaysaa wax hadaan soo barin marka hadhow marka waxay ku noqonaysaa sadma shil bay ku noqonaysaa loo markay baabuurta isku dhacayaan markuu baabuurkan shilka galay kuma tala galay inuu shil galay maanta Soomaa marka sadmay ku noqonaysaa wixii madax ku rufstay noqonaysaa way wareeraysaa marka nolosha dhan ka dhacaysa oo sagsaag ba ku dhacay marka taas uga badbaado qofka marka maxaa la dhahaa inay fahanto fahmul hayaat quraankan uu sheegay xuquuqdeeda Umar markuu meherka markaan yareynayno la yareynayo tira ilaahay ma yareyna adima maxay xadiid markii la xadiidinay dhahday adima xalaaleynay sida dhahdan Umar ma la xad meherka oo been shariicada kare gabadha waxay rabtay sheegan kartaa markaas asaabat imra'atun wa akhda Umar waa qaldamay laakiin gabar baa wax saxday marka fiqigeeda la baray ahadiis marka fiiriso qadaayadka nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam loo keenay kulligood uu gabdhaha u difaacay gabar yar waalidkeed maxay tahay rabeen in lagu daro aabay wuxuu rabay inuu guuriyo sidoo qasiisnimadiisa saga dhaqaytir qof uu riyoonsi waa laga celshay Aisha inta fariisatay nabiga markuu imaaday uma guurin kartaa leeyahay qof ay sarribin uma guurin kartaa marka xorriyada oo ah ikhtiyaarka in ayada leedahay qofka guursanaysa in ayada munaasib ku yahay qofka ma u baahan yahay ma u qalmada waa gabadhaas marka gabar yar way ahayd nabigu soo dacwatay tu kale way imaad nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam inuu zawji dalaqani wa inuu yuriid an yantazi'a minni awlad arurta inuu iga qaatirtay riqaatu rabay maxaa lagu yiri marka anti ahaqu biha ma lam tankihi inta adaa u xaq leh ilmaha ina hayso inta aadan guursan marka gabadhaasna ilmaha xoog looga qaato nabigu uu ka celiyay kaleey sallallahu alayhi wasallam muxuu uga celinaa marka haday guursato markaas ahkaam kala imaanayso yaa u xaq leh ilmaha marka waxa la fiirina maraa cimriga ilmaha hadii aad u yar yihiin ma ayada haynayso hadii waa weeyhiin ma aabaha haynay marka culimadu way ka hadal aqwaal fara badan marxaladda cunuga uu jooga la fiirina markay gabadha hooyada reer labaad ay samaysato labadii qoysna ay kala tageen caruurta yaa munaasab ku ah ma habar yar haynayso ma ayay haynayso ma aabihi dhalay ba haynay ma ayadii ba loo deynay markaas waa aqwaal marka yaa ku haboon baabka xadaanada ku taala marka xataa xaqaaqa xuquuqda ilmahaada waa shariicada way ku sheegtay لينفق ذو ساعة من ساعة أسكنوهن من حيث سكنتم marka dadjiye meesha degantiin alla ayadoo la furay xataa shariicada wasiida wataaganta walil mudallaqati mata'un bil ma'ruf ayadoo la furay xataa waxeeda si wanaaji alla wala tansawul fadla baynakum hasi iloobina wanaagi shalay dhex martay marka intaas maxaa shariicadu gabadh u siisay inaysan gabadha dayacmanin taaga gabar kale inta waxay u imaadeen rasuulullah hebel ila hadlay hebel yaan guursaday hebel guursaa lagu yiri waa loo sheegay midka munaasabka ku ah xusnul ikhtiyaar waana barata marka qofka nolosha la wadaagaysa uu ka halaabo waksaaga madal xayaadu kula soconay marka ikhtiyaarka duu ku hagaaga nolosha kale ku hagaagaysa markaas loo sheegay marka oo la dhahay hebel guurso hebel kuma haboone waa sheegay mar hore maxaa kale quraanku u sheegay gabar kale la furay maxay gurigaas ku cid tirsan gurigaas kale ku cid tirsan lagu dhahay wala astur waxa saxaabadeeda meesha sugu imaadee gurigaas kale ku cid tirso marka markii hatta nabiga kaleey sallallahu gabadhii la furay hatta meesha ku cid tirsan lahayd nabiga uu sii sheegay kaleey sallallahu gabar kale inta maxay ahayd nabiga uma diyaar rasuul ninkii wuxuu dhahay anti alayka dahri ummi quraanka ka soo jawaabay
hooyada markaan duqoobay oo ilmo badan dhalay hooyo weyn aan noqday yuu ninkii wuxuu dhahay tira sida hooyadeega u tahay marka axkaamaa ka imaada axkaamu dihaar la yidhahdo oo baabka fiqiga looga hadlay oo macnaha hadal walba inaan la iska dhihi karin hadal walba inaan la iska dhihi karin qaabka gabadha loo furaayo inanta qaab shareecada waafaqsan oo dalaaqa axkaamta dalaaqa bidci dalaaq sunni loo kala qaado oo marka ayadana markay nagu soo dacwato waa loo xaliyey gabar kale dhaxalka ayadana suuraddaas waxaa soo degta suuratu nisaa xataa markay laga dhinto xaquuqay leedahay waxba dhaxala may lahaan jirin maanta anaga wayna haysataa markii gabadha aabaha usii dhiman dhaqaalihiisa wiilashu gacantu geliya gabdhahana waa la qadiyaa waxaasoo dhanka waa qadaayaad shareecada ay xalisay oo caaisha radiallahu canha ay soo tagay wax walba fiqi masaa'il kasta la weydiiyey ay ka jawaabaysa marka alxuquuq walwaajibaad aa barato maxaa lagaa rabaa oo ilaahay uu kugu waajibiyey maxaase xaqo adiga aa leedahay adoo intaas baranin famil ha noqonin mas-uuliyiinna ha qaadan diyaacu lmara almuslima gabadhaha dayaca ku dhacay maxaa andolos muslimiinta markay adduunka talinayeen gabadha culummadu waaweyn dhan kulli gabdhaha soo saaray imaam maxay bukhaari hooyadiis waxay ka keentay bukhaari xaramkay keentay imaam shaafici hooyadiis qazi ay ka soo kaxaysay makay mukalman ay keentay kulligood imaam ibnu xajar 200 iyo something gabdhood aa wax baray kulligood waa hooyooyin la diyaariyay ahaayeen qofka markaa baro sida